daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo kaga hadli doono magaalada Muqdisho xaaladaha ka socda iyo waliba ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha khilaafka u dhaxeeyo waxaa si gaar ah kaga wareysan doonaa wariye Baadiyo oo garabkeeda taagan kusoo dhawaada Baadiyo seenami waa ku dhawahay barnaamijkaasi khilaafka u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha madaxweynaha dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddooyinkan uu soo jiitamayay hab ugu horeysay markuu shir ku baaqay madaxweynaha madaxweynaha dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo ku sheegay shirkii warqadii ka soo baxday xafiiska madaxweynaha in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu gudo waayay waajibaadkii ka saarnaa doorashooyinka iyo amniga sidoo kale ku baaqay shir markaa looga arinsanay arrimaha doorashooyinka inay ka soo qayb galaan dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya taas kadib waxaa soo kala baxay dawladihii xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa u kala qaybsamay shirkii uu ku baaqay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha madaxweynaha dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inta hadda aan hayno waa saddex maamul goboleed ayaa mowqifkooda cadeeyay waxaana kamid ah maamul goboleedka Puntland oo ku raacay shirkii uu ku baaqay xafiiska ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble sidoo kale Jubbaland ku mowqif ayuu noqday maamulka Puntland taasi mid lamid ah ayadana maamulka Koonfur Galbeed ayaa isaguna markaa ku raacay xafiiska madaxweynaha shirkii ay ku baaqeen looga arinsanayo arrimaha doorashooyinka aad baa u mahadsantahay abaabulka ciidanka ay ka wadaan dadka deegaanka kala socotaa waa jirtaa maadaama xalay ka soo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda maadaama ay ka soo baxday xafiiska madaxweynaha madaxweynaha dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warqad lagu sheegay in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu gudo waayay waajibaadkii ka saarnaa arrimaha doorashooyinka sidoo kalena awoodiisa markaa lagu dhimay sidoo kale dadka deegaanka ay wadaan maxaa kala soconaa dadka deegaanka waxaa kala soconaa abaabul ciidan inay wadaan taasoo soo isbaxday markii xafiiska ra'iisul wasaaraha loo ogolaa waayay inuu xafiiskiisa tago sidoo kale wararka waxay sheegayaan in wasiirka amniga iyo wasiirka sidoo kale gaashaandhigga shalay isbedelka lagu sameeyay Cabdiqaadir oo labadoodii ayagana xayiraad lagu geeyay ama markaa ay geli waayeen madaxtooyada oo dib dambana markaa loo soo bixiyay waa sidee hadalhaynta shacabka ee ku aadan khilaafkan ka socda magaalada hadalhayntan aad u badan tahay dadka waxay dhaafayaan in markaa uu dagaal dhici karo mar waliba iyadoo baruusi uu jiro oo dhanka xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo waliba dadka deegaanka sidoo kale dhanka madaxweynaha waxaa laga sheegaya isaguna inuu markaa baruusi ay jiraan ciidamadii markaa dawladda ka tirsanaan laba dhan u kala jabeen xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha dadka deegaanka ayaa markaa waxay dareemayaan qalqal amni iyo waliba hubanti la-aan inay jirto markaa dadka qaar xitaa waxay markaa isla dhaafayaan in qixitaan ama markaa barakac uu jiri karo waa tahay intaas waxaan kusoo goobaynaa barnaamijka aad kala socoteen Joy TV iyo waliba xaaladda magaalada Muqdisho inaad nagu soo biirto si aad noola sii joogto waxaad u baahan tahay inaad page-keena like iyo follow aad tiraahdo ama aad subscribe saarato barta YouTube-ka aynu ku leenahay Jowhar TV daawade mar waliba waxaad naga heli doontaa warar sugan short films